arrin ka sheekeeyay nin muslim ah oo bariga dhexa ka yimid oo jarmalka wax ka baranay waa dhaweyd ba dhacday. ninka wuxuu leeyahay maalmahay waxbarashadu ii dhammaanaysa wax yar ka hor ayaan baabuuran lahaa soo kaxeeyey buuri jid weyn oo highway oo sariic ah oo aakhan loo yaqaano ku yaala Berlin agaarkeeda anoo aad u ordahayay yaa jidkii waxa ku timid habar waayeel oo duq ah cutush ah baa jidku ku timid meel dhow oonan iska dhaagay meelan oga leexda waan waayey haweenayda saas ku dhimatay buuri xawaare aad u badanna waan ku socday meel gaabanna duq bay iga soo baxday ruux ordi karo oo adinkiisu furan yaana ma ahayn idan wadkeedii saasuu ku yimid ajisheeda halkaas ku baxay isla markaana meeshii boolis baa yimid ciidamanka sheelka sixi jiray wixii baa la fiiriyey ninka adrees iyo ciwaanaha laga reebay muslimka ah ee carbeed waxaana lagu xukumay duqdu inay iyadu khaldanayd maxaa yeelay buundo koroo la maro mushaadu dadka lugaynay ay maraan bay meeshu lahayd rasiif lagu talagala dadku inay maraan bay lahayd idan jidkan sariica haweyga ayuu inay soo gasho xilliga asaga ayadaa ku khaldanayd khaladkii baa lagu xukumay intaasoo buundaa kor ku taala maxay u marweydaan la yidhi ninkii waa la fasaxay muslimka ah adreeskii baa laga reebay xali waa kula soo xidhiiri doonaa san hawsha u dhammayno inay ogaana meesha ku dambaysay 3 maalmood kadib ba wuxuu leeyahay ninka muslimka waxa ay soo wacay wiil isku sheegay inuu yahay ibn al-ajuz haweenaydii inay dhashay dhimatay wuxuu waxaan ahay hebel buqdi aad dhashay baa ay dhashay ninka muslimka wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan kula kulmo buuri inaan kula kulmo ayaan doonayaa ninka muslimka wuxuu leeyahay markuu ninku sidaa yiri meel aan joogo iyo meel aan taagana waan garan waayay hadii nimaad hooyadii dishay ficlan maxaa ka sugaa adigu nimaad hooyadii dishay hadii waxaan doonayaa inaan kula kulmano is aragno waxaad ka sugi inaad meesha ku baxdo annagu malagaaba galay wadkaaba galay saad hooyadii u dishay kii naftaada u qaadi lahaa way oranaysa oo saas waxaanu aan sugayna way dhaqankeenna markaynu eegno meel qaadaan way buur waxaan la ballamay 3 bari kadib 3 bari waxay ugu noqotay buuri hal saac لأنه waa 3 bari aan filhayo ninka markaan kulanno ama inuu idilo naftayga goyn ama aan ka goyn وفعلا انه حتى هذا اجنبي او مرتئه او لاجئه طبعا aan lahayn nimankan jariimadu waa u fududahay marka inuu intuu baanday iyo ciidan soo kaxayso naftada laga qabto inuu sugaya adu qoob garir fara badan iyo walaahow fara badan iyo wadna fug fara badan iyo wadna garaac badan kadib maalinka aan la ballamay baa la gaadhay buu aroortii oo aad u qabow oo baraf uu dhacayo aad u qabow yaan dhidid iska tirahay buu dhidid هايلين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وي وهول العرس سانديد كوتر هايون كلبا أنتيش كو قادني يا ساعدي جرت صوت عيب جنبالك بالا قرع بري الباب كمان فري أنا وقرقرر هاي ولو يحكي لا أيهين لمر هداد أدو عبسة لو كهين ما إياه cabsina mid buudiyaha kaaga shaa kugu dar haday kaaga sho caloosha iyo wadnaha iyo meelaha oo dabayshu xabadka kaaga sho baa ku ron way ka tagi durba laakiin buudiyaha haday ka bilowdo waliga taagnan mees kaadina cishan mees walaano taagnaan la ayaa albaabku furay in baa la yaro quruxsan oo dheer oo wasiim ah oo muusoonay yadu gacantiisu taagay buu أنا كويد اللي دل الله سعود. دوبني كمسلم وحب الله وعود زارته هشكريه يعني إنه خلدمي إنه وحكة دياروي هاي إنه مكتب بحنايه هذا النمط هو يدي استشوق كتلتها كان حبرا ودن كيسين الشوقة يا أظن مرتئة
markaan calaacalkii iyo hantaatici iga dhammaaday yahuud buu istaji waxaan anagu u imid inaan kaaga mahadnaqo dilkaad hooyada dishay waa arrin dhacday wey ma aha wax sheeka ah jarmalka jaadidka oo dhan baa qoray caalam islaami baa laga qoray waa la yaqaan ninkii baa noola jooga nin culimo la yaqaana arrin hawsha ay qabsatay wuxuu waxaan u imid inaan kaaga mahadnaqo dilka aad hooyada dishaan u imid buuri maxaa yeelay arrin aan sugahayay buu 10 sano ka badan aan gaadahayay baad ii fududaysay si gaaban oo aan shuqul ku lahayn wuxuu 80,000 oo maalku waxaan u maleeyaa waa lacagta jarmalka ayaa hooyada u taalla buuri life insurance-ga caymiskeeda hadda waxa ay fudud buuri intaan shirkadu taamiinka u tago shirkadii insurance-ga caymiska intaan u tago inaan 80,000 qaato buuri wax iga daba hadli kan uusan jirin waxay dhashaan aan adduunka ka jooga waxay dhashay islaanta aad dishayna kaliya baa ka nool buuri 80,000 marka ana iskala buuri saan doonaan ugu tamashlayn marka waad mahadsan tahay bal wali wax isku daybina wax kaasi lacagta iyada ninka muslimka xuru waan wareeray inaan aakhiro joogo inaan adduun joogo waan kala garan waayay buu ruux inuu bini aadam yahay inuu jin yahay waxaan marhum baa mise ma aha cabsidii ninka haysa iyo ninkii bawduhu jarayn hayeen isku kaajaayeen naftu haysay iyo hadalka ka hor yimid uu qaadan waay ilaahu alladin ka warshi way ninkii libax u qaaday marka baydhamo reer bakool libax qaaday baa leeyahay isagoo jiifa libax baa la kacay يا محمد مساعد يوها وايه طيب markuu dhaxda sii wato arkay in libax saar u wato wuxuu ilaahu riyaa iga dhig waxaan in badan baadoo jiifa mooti libax ku curi oo maska curi oo marad bohol ka duuli oo marad biibi oo riyadu xuduud ma laha markuu wuxuu ilaahu walad riyaa iga dhig boor rageedu baa jooga laakiin anigu waan tataabanaya marka wuxuu waxaan u qaatay wuxuu inay alad batariyatu xaqiiqada ahayn kadib baan miirsaday barasharkii badnaa baa ka soo degay inaan kala qaado wuxuu ruux bani aadam ilaah Allah ogaaday maalintii ugu dambeysay buu muddo ila joogay biyo wax ka cabay waa imaan naqay war lacagna waxa iga siinay hadduu Allah yahay inuu dhaaf maadhay buu hadda wuxuu ii haysanay wada soo carray baan meesh ma aamin buu ila aaminka ninkii uu say u deynay laakiin xaqiiqadii wadankii meeshu ka guuray meel kale uu tagay dib wax lama qabsan booliskii iyo qolihii wax sax jireen waxay dhahay accident waxa iska lahaa khaladku waxa iska lahaa hooyo iska lahayd ninkan wuxuu qaatay insurance-ga life insurance way wax u yaalay la kac idan waa rajul ka shukraha kama hanaqaya hooyadii dilkeedii jaa liyashkur qatila ummi soo mushkila ma utimaadina umma hanaqdo hooyada ninka dilay tayib soo ninka muslimka waa khaldamo hadii dambi ma laha kafaaro gudi waxba laga rabaa hadii iyo mag iyo haday wax jiraan tayib inta soo kafaaro liya laga ma bixiyo gaalada laakiin mag bay leeyihiin wixii markaan aysan muxaaribin ahayn laakiin ninka magta qaadan lahaa ee hooyo dhaxay lahaa yaaba wuxuu u yimid inuu kugu mahadnaqo dilka hooyadii cagtaad marisay iyo taayirkaad ku baabeysay inuu ka mahadnaqo dadka noocaas marka inaad ku dayataan dhalinyaro oo tusaale wanaagsan ka dhigataan iyo xidig lagu daydo la raacaad ka dhigataan waa musiibo iyo baliya aan marnaba la xamili karin hadda muslimiintiin arinta la iska ilaaliyo waalidiintana loo jabnaado ayaguna caruurtooda marka hore tarbiya saalixa tarbiyayeen inta tabartooda ah ilmuhuna waa inuu ilmo barakaysan noqdo ilaahan loo bariyo tayib intaasaan kaga gudbaynaa wuxuu ku saabsanaa birr waalidiin daan la lagu dayan ilaaha laga cabsado xaq waalidkana hal iska ogaado bilaa